asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Soo dhawaada walaalayaal, maanta iyo mashruuc cusub. Anoo walaalkan cabdilcaziis ah, kusoo dhawaada channelkayga suldaanka mashaariicda. Haddaad meesha ku cusub tihid, subscribe dheh, gambaleelka ku dhufo si ay notificationka kuu soo dhacaan marka wax kasta aan soo waxaan leeyahay mashruuc cajiib ah. Mashruuc ku cusub Soomaaliya maahan, waa jiraan dad mashruuca galay laakiin way yar yihiin. taasna waxay noqonaysaa fursad in adiga aad ka qayb gashid ama adiga iyo asxaabtaada aad mashruucan aad ka qayb gashaan. Mashruucan waxaa la lahaa mashruuca dhalinyarada, waa mashruuca dhalinyarada aan jaamacadaha ka soo baxay oo shahaado jaamiciya haysta oo laakiin aan shaqo aan helin. daa'iman mashruucaasi furaan Mareykankaad ka helisaa, Yurub, meel kasta aad ka helisaa mashruuca. xataa carabaha hadeer aad buu ugu faafay. mashruucu waxa weeye gaariga matcamka ama hodheelka ee gaariga ah. muxuu yahay mashruucan? seebaa loo furaa? maxaa liga baahanay haddii aan meesha furayo? dakhli fiican miyaan ka helayaa? waa maxay miisaadka uu leeyahay mashruucka? waxaasaan ogaan doona insha allahu tacaala. mashruucan bidaayatan markaad daraaseynaysid laazim waa inaad ogaataa intii lacag kugu baxaysa oo aad qiimeysaa si aad u ogaatid miisaaniyadda lacagta u baahan tahay عشان مشروعنا بلعبه. بدنا مشروعا هل قف ما بلعبه وحا بلعبه لا بقف أما صدح قف. إذا محن رهني مشروع جاريجا هوديل كا ومشروع عاد ناجح هو سان شيغني دليار فربضن بكفائدة ستي ومشروع سميسي. طيب بداية مشروع محلي جابهني مكان ربخ. أول شيء وحلا جابهني هاي inaad waraaqaha qaanuuniga aad soo dhameysid, leeno ay mashruuc saan sheegnay oo inuu kuwa ahaada mashruuc qaanuuni ah oo waraaqihiisa aad ka soo dhameysid dawladda hoose iyo wasaaradaha kale nootayada ayaga ku soo sheegaysaa u soo dhameynaysid. taaniyan waxaan u baahanahay gaari yara fiican oo yara weyn oo xagga gadaal leh oo maaragtay aad dhex istaagi kartid alshaan iyo waxaan u baahanahay jika yar inaad meesha ka sameysid decoration yar. waxa u tagaysa qofka biraha sameeya waxaad ku dhexaysaa aluminium baan u baahanahay asaga markaa ku sameynaya ku habeenaya. waxa u baahan tahay shoolad, baby gas, waxa u baahan tahay bahashan saliida maaragtay lagu sameeyo barandhada ama shibiska dadka aad u jecel yihiin. waxa laga baahanay microwave aad saa ugu kuleyso kan cuntada lagu kuleysto mid yar oo yara habaysan baad u baahan tahay. iyo waxaad u baahan tahay bahashan korontada soo saarta generatorka korontada si aad koronto yar aad ka soo saartid meesha oo kalba meel aad baxdid aad u sii qaadatid. waxa laga baahan yahay meesha inay aad nadiif u noqoto oo aad maaragtay meesha nadaafadeeda aad ilaalisid. iyo waxa laga baahan yahay haddaad rabtid solarna waa ka dhigan kartaa korontada. طيب waxaasoo dhan waan habeystay, gaarigii waan habeystay, jikadii, alaabtii oo dhan waan keenay. dadka maxaan siin lahaa? طبعا dadka marka wax siinaysid laazim waa inaad la imaataa waxyaabo cusub, cunto fudud cusub, dadka aad u xiiseynayaan, dhadhan macaan leh, iyo waxaas kale adiga haddaad meesha ka shaqeynaysid waad waqti u haysid. waxaan dhihi lahaa intaanad mashruucaad ku dhaqaaqin tadriib samee oo maaragtay xagga cuntada tadriibka samee oo khaltado cusub la soo bax waxyaabo cusub ay say maaragtay dadka u dhahaan wow cuntadeena aad buu u fiican tahay. طيب hodheelkii waxaasoo dhan waan diyaariyey, cuntadii iyo waxyaabahan dhiibi lahaa iyo qiimaha lacagta طبعا bidaayatan waa inaad diyaaraysaa علشان si dadka meesha u bartaan. teeda kalena waxaa ku saacidaya meesha kirma laga rabo لذلك حق cuntada iyo qiimaheeda waa yara ridisa. طيب halkee baan wax ku iibin lahaa ama meeshee baan aadi lahaa? طبعا waxaad aadaysaa meelaha dadka ku badan yihiin sida jaamacadaha, sida iskuulada, sida maaragtay suuqa. مثلا subaxii kole jaamacadii baad aadaysaa, duhurkii xilliga qadada suuqa baad aadaysaa, gaarigaaga waad haysaa waa shaqaysiinaysaa meeshaad suuqa ku ah baad aadaysaa. طيب mashruucii waan diraaseynay, suuqii baan aadnay, dad badan baanu helnay. mar walba waa inaad la imaataa wax tatawur ah.
طيب waxaa jirta shay la dhaho munaafisiinta ama dadka kugu dayanaya anaga Soomaaliya marka qof mashruuc cusub la yimaado tani yom qof kale ku dayada lidalik maxaa laga baahanyahay inaad mar walba tatwiir aad la imaatid yani wixii aad sameysay aan ku ekaan kullu shweeya wax aad ku dartid kolba wax aad ku dartid wax cusub say dadka mar walba ay ku xiiseeyaan adiga aan qof kale u tagin طيب تاوا بالنسبة لمشروع كله كان هوديلكا متنقلكا لكن waxaa arrin kala jirta oo mashruuca hoteelka mutanaqilka mumkin inaad ka dhigtid meel cafe iyo shaah laga cabo karaas yar oo fudud ah meesha soo dhigtid mumkin inaad ka dhigtid maktabad oo waraaqda lagu daabaciyo bugaag iyo waxa lagu gado mumkin inaad ka dhigtid foondiyada kuwa telefoonada oo kale oo maaragtay yani kuwa telefoonada sameeya dadka wax jecel yihiin ayagoo taagan hawshooda loo dhameeyo dadka يعني waxyaabo badan fikrado far badan baa yani adigu fikrada qaado laakiin ha ku ekaan fikrado far badan oo kale ka soo dhalay oo yani daa'iman marka aniga aan fikrad ku siiyo ha ku eekaanin wax kale ku sii dar yani ibdaac la imaw anigu intii aan yani fikradun baan siinaya adinka marka tatwiirinaya fikradii waaqic u bedelaya insha Allah ta'ala iyo مشروع انت la bilaabin 8 shay baa jira oo qofkii laga rabo inuu la yimaado kor baad ka helisaan oo hadda ay ku qoran tahay ama video-ga raaca xagga safxadda aada video-haadka ka daawada oo video-ga maartay aan soo dejiyay ka daawada aad baa uga faa'iideysaan wax haddaad video-ga aad ka heshay like inoo saar say dadka badan oo arkaan leen video-ga marka like la saaro uu shaaca oo dadka badan buu soo baxaa iyo haddaad weli aad subscribe dheh gambaleelkana ku dhufo عشان notification si kugu soo dhaco oo mashruuc kasta oo aad meesha ka heshid insha Allah ta'ala haddii aad wax noogu dari kartidna fikir ama wuxuun commentiga ku qor insha Allah oo dadka fikradaada si ay uga helaan oo ka faa'iidaan walaalkiin Cabdul Aziz aad baa u mahadsantihiin wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh